Here waxaan la joognaa radio KFFI and Somali Public Radio and your website keeni Somali wargeysmedia.com maanta oo ay Soomaali badan iskugu timaaday ee Soomaalida ku nool North America oo ay iskugu timaaday banaanbax looga soo horjeedo qafaalkii ama afduubkii lagu sameeyay Cabdikariin qalbi dhagax oo loo afduubay dawladii gumeystaha ahayd ee Ethiopia yaa waxa iskugu yimid dad badan oo Soomaali kamid ah magaaladan capitalka ee maxaa la dhahaa ku taalo Minneapolis dad badan ayaa iskugu soo banaan baxay iyadoo isku bedeshay heeso gabayo iyo maxaa la dhahaa dhidhiyo Soomaaliyeed ayaa maxaa la dhahaa waxaan ka soo tabinaynaa maanta waxaan ka soo tabinaynaa banaanbaxan oo ay iskugu yimaadeen Soomaali aad iyo aad u fara badan oo ka dhidhiyaysa oo ka soo horjeeda ama muujinaysa inay aad iyo aad uga xun yihiin qafaalkii Ethiopia ay ku sameysay mudane laba dhagax qalbi dhagax sorry oo laga qafaashay madaxtooyada dalka Soomaaliya waxaan maxaa la dhahaa soo tabinaynaa wargeysyada ku saabsan ummadda Soomaaliyeed inay ka dhidhiyayso ama ay aad iyo aad uga xun tahay in nin muwaadin oo Soomaali ah laga qafaasho madaxtooyada Soomaaliya wixii warbaahin ah annaga idin la socodsiin doono oo ku saabsan banaanbaxan ay iskugu yimaadeen Soomaali badan
iyo gudoomiye soo dhaweey Somalia 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 Ogadeya Gabdhaga Gabdhaga kulliga waxaan qalbiga kulliga waxaan qalbiga qalbiga أبوان بايغوك أنا يا حس وجري يا قلبي لا يحمد وعليكم السلام ورحمة الله dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee runtii xaqiiq ahaan anigu Soomaaliya muqdisho ayo aragtida jiro wali muqdisho okay xaqiiq ahaan anigu runtii wali ma aanan arag sooqayga Soomaaliya ee muqdisho iyo Soomaaliya iyo Kismaayo iyo dhulkan kaleete laakiin wadankii aan ku dhashay hadda wadankan Ethiopia ay haysato ah markii aan joogay waxaa la ii sheegay isirkayga iyo nasabkaygu inuu yahay Soomaali sidaa darteed ayaa waxaan ku faraxsanaa mar walba oo aan ku hanweynaa Addis Ababa in aan ka doorto Muqdisho oo lama huraankaygu yahay Muqdisho waan ka xunahay runtii markii sidaa ahayd maanta Muqdisho in laga dhiibo waxaan ku faraxsanahay dadka shacabka Soomaalida ah sida ay uga diidiyeen dhamaantood arrinta ay uga wada danqadeen una dareemeen xaqiiqada iyo inay haysato Ethiopia oo maanta Ethiopia ay gacanta ku hayso weli la sheegay rag baarlamaanka kamid ah inay soo jeediyeen codsi ah caalamka Ethiopia in laga taago dhammaan gobolada Soomaaliya waayo xaqiiqada iyo dhabta jirta weeyaan ma aha in la idalo dadado gumaysi gacanta inagu haysta waqtigan xaaliga ah waan ka xumahay runtii dhiigii iyo dadkii hore ee awoodeen in aynu ku caasino maanta oo aynu garab marno inteenan oo dhan inagoo dhammaano runtii dhibano ayaa ka roon marka horeysa insha Allah hees wadani ah oo ay qaadi jirtay jabhadda wadaniga xoreynta ogaadaniya oo dadka shacabka Soomaaliyeed yaana ay nagu tusaaleynaysaa walaalnimada iyo isirka naga dhaxeeya ayaan idin qaaday insha Allah ku soo dhawaada shacab yahow wanaagsani ka weeshana tahay mid jacala wawiiqe halkan ka wada tahay shacab yahow wanaagsani ka weeshana tahay mid jacala wawiiqe halkan ka wada tahay wallaha ku dhaarte mid wadani waa tahay وعد كاينو ديغانانا كان كاوي عمباتاي سومالي ودرتين ولا لينو نهايو وعيد مويين فريا وحمودين كيناغا ويعدي ولا فيناغا قادرة وحينو واجبا ينواني ناي سومالي ودرتين ولا لينو نهايو وعيد مويين فريا وحمودين كيناغا ويعدي إنك تعلنا وحينا بواجبا إنوان النايم نفتي هراها دارتي نفتي هراها دارتيو هلقاك ديدي نفتي هراها دارتيو هلقاك ديدي ديكي سشرفت لي كوكا يا أوغي نفتا ديبا يا هراي وي نفتا نفتديبا هوري إساغو تقاليو تداميو أمهاربين إساغو تقاليو تداميو أمهاربين حضتو دعيسيو إنبيرها أنادين ديمشو
dhimashada ku talagalay way dhimashada ku talagalay dhawa iyo haraad iyo dhagax duraayiyo dhawagoda xutaaliyo wax kastoo dhibaata haka dhawro eebahu haka dhawro eebahu kushu waa dhankiiso waxu dheefsan doonaa kolka soo xoroobiyo janno aan dhammaanayn janno aan dhammaanayn insha allah shacabka soomaaliyeed guushu waa xaggiina insha allah kor ha la isku qaado yaa la niyad jabin bulshada reer ogaadeeniyana waxaan u sheegayaa cadowga etoobiya in ay doonayso soomaali oo walaaladiina inay idin kala disho inay idin nacsiiso soomaaliya intay ka soo qaadda bari inay ka soo dayso jigjigo ay dhahdo kuwa aad ku faanayseen ee soomaalida caawa isirkiina yuna baabi'in ku dagaalama oo ku mintida magaca soomaaliyeed wax kasta idinka soo gaadha aad baad umahadsantihiin سيد محمد عبد الله حسن ما تيروريست بوا عادل عبد الله عثمان ما تيروريست بوا عبد الرشيد علي شرماركة ما تيروريست بوا محمد سياب برهم ما تيروريست بوا حقين لغا كان صومالي ودوان تيروريست حقين لغا أخي وقادر يا حروس باكاني وقادر يا حروس صومالي يا حمدون ummadda Soomaaliyeedna waa gumaysi bay ku wada jirtaan nin waliba waa inuu ogaadaa midkaas waxa weeye sidii loo xoreyn lahaa shanta Soomaaliyeedna la isugu keeni lahaa falak tagaban mayno kama gabanayno shanta Soomaaliyeed inaan midayno kana daali mayno wayna xoroobi waana midaynayna Soomaaliya hamidu xoroob Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha midowdo cadawgeeda dhoon dhulka alla hageeyo ilaahay waxaanu ka barinay inta cadawga u ah ee Itoobiya ay kow ka tahay dhoon ilaahay inuu ka dhigo ogaadeen ha xorowdo ogaadeen ha israacdo ha midowdo cadawgeeda ilaahay ha wada tuso kuwa maanta la jira ee maanta cadawgeeda la shaqeynaya ilaahay ha soo hanuuniyo bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weeyaan dadku waxa la yiri waa abogaaya waarikeentay dadka dhalinyarada ama dadka waaweyn dadkii xornimadii soo arkay ee joogay ee calanka ku soo intifaacay ee ku soo noolaaday ee wuxuu yahay garanaya baanu nahay dadkii xitaa kitaab baan ugu soo maray anoo iska wax u qabso ku shaqeynaya wallahi kitaab soo maray ilaahay igu ogyahay waxa weeyaan Soomaali dhiig baa lagu ogaa geesinimo lagu ogaa wadaninimo lagu ogaa israac baa lagu ogaa calanka buluuga ee shanta gees leh meel xun baa loo maray meel adag baa loo maray waa la soo dhiciyay inta maqana waa la doonayay jigjiga lagu sida aan sheekada ku maqlay jigjiga lagu qotomiyay calanka oo lagu sameeyay oo lagu alkumay aswayel maanta anaga nasiibka yaga baa dadka yaga dib u celiyo maanta halka dhigay waxa naga dadaal badan oo naga dagaal badan oo naga dhimasho badan oo naga geesi badna ma jirin marka runta loo eego inta aanu soo maray Soomaali weynta kare ma aanay soo marin aniga awowgay baa lagu dilay aabahay dhalay iyo ilmaadeeradii baa 12 iyagoo hal mar la wada diray oo xabaji dishay oo jigjiga ku dishay ilaa qarnigaas la soo dagaalamayay oo ilaa qarnigaas ayaa dagaalkani socday Soomaali ficilkeedii waanu garanaynaa raggii geesiyaasha baa xabaal galay geesiyaashii baa madhay geesiyaashii baa dhintay geesiyaashii baan cidi ka noolayn raggii diidi jiray xuduudka beenta ee lagu qaybiyo Soomaali inay soo maalinkii farmaajo la doonanayo raggii sidaa u dhaxmaray ee yiri Soomaalinimada hal lagu dhinto maanta gacantiina ku jirta raggii yiri iyo shacabka damiir kale baan la hadlaya lama hadlaayo dhuuri qaatayaasha lama hadlaayo dhiig laawayaasha lama hadlaayo kuwa wadankooda gadanaya lama hadlaayo kuwa annagana duusiyay ee argagixida
sida nagu sheegay lama hadlayo inta damiir kale la hadlaya iyo annaga maxaan ku jabhadada iyo shacabkayaga waa idin garab taaganahay marna halliicina dabada u tuura magaalo kasta xafiis baa uga furanoo waxa u jooga jaajuus iyo nijaas baa u joogta waar iska ilaaliya iska bixiya annaga jafno ka adkaanay annagoo jabhadan ilaahay mooye adoon caawinay annaga jafno ka adkaanay idinkuna iska bixin Soomaali iyo siyaasheedii intuu magac weynay intuu qiimo badnayd intii sharaf lahayd waxay ku dhimatay colaadda Itoobiya iyo Soomaaliya waxa ay u dhinteen ama lagu dagaalamay ma isbedeleen dabeecadda Itoobiya ma isbedeshay Itoobiya ma Soomaaliya duulaan ku ah nabu waynu ognahay Itoobiya inaynu darisnahay inaynu weligeena daris ahaan doono in aakhirataanka maraynu noqoto la heshiin doono laakiin waxyaabaha lagu heshiin doonaa ma yaalin meesha حكام يقصو كوبيا هذا كذا أنا بقوله عبد الله فرمانشو يسوسان بعيدي وضد شوية تاجري وضد عارف الدرسلي وضد يده لقبل الدرس لكن وحقود عاي وحال فلين يرتاف يبنى ليلي وحقصو كوبيا ما سعر فلي يبغى المقشر والله ينادو هذا سوالو سينو قادر يهاو يقول يا ما تقولوني وهذا أنا كسرت هذا يطلع عليه يدك ما تولع يدك كاتي فوش كويسي نعبي شعيري يمك إلى القوي تشعر الوقت بوسو سلبشتي تيجي وقصانا يهدي صنعي يرتعدي وجاري انت يصلحي اسمه نقطوي هو الراعي يفعل يهونا محتاجي هو بين بنولي قالوا لنا عيني بسوا كوبي كانوا يبكي لدي يمشوا بلا فلاني محمد عبد الله فرمانشو مدحويننا الصومالية يوم فانا وحلايا عبد الكريم ذكراني جننا ندي كلام حيب علي واحد سلطان حتى يركبها نكي قيد الله يريد سوق يسوق حتى الساعة بده يسان وعبد الكريم على قد ما تجي عبد الكريم على السوق هو كحيجة واحدين هو كحيجة الذي بدون واحدين ما أنت واحد نالك بالسوني إنه نفع النووي مدى الصومالية ميل كستو أي جلتان أي فلتو أهين إلا قبروني يوماها قرق الصومالية تمن مينو مدى الصومالية نفسقاتين مينو وحانون من وحوي الصومالية وقرق شري وانا شري دونا سن على الحولية يا عرب لو يغان نقول أصلي سن شرجي فوق وقاليني NFT وغاي كونفوق يجبون درين كاس الملمي تطلعوا الصوماليين باوها بغدا العين الرومي ملمي نوانون ضبطي الصوماليين الناس استوي شوال دياري بالمدينة مرلبان سوسو لابتنا الصومالي اللي هو وعن هالقو تاقلنا هنا فريق مدرنا دولة الصومالي وعن هنا اللي ياقول لبيا طبعا سنة مدلقة شوغا لبدي كل اللحي يا بقول كنا إثيوبيا صوماليا سوكله يدو عالم كون دعمي يهب السينة وحل الله يا صومالي يا هاي وحل الله يا صومالي يا هاي الكتب عالمية يا هاي وأنا كهذا سؤال بالي قويتي مجال الهندسة مظاهرات كان وأنا إثيوبيا واقعات كارين هاي ويتنس channel 5 وشنا يا وحيوين سيوات كان إنسان إثيوبيا عيدا بيدا عيدا ملي وعاني وحنا قانا تسيقا قانا أود لنا قانا ويعطى إثيوبيا صوماليا وعالم سيكا الله استعمال وحان كلاو رأينا اللي وذاكو ما أنت رواكو عليا
إثيوبيا يدا تلعسن يدا بربرس صوماليا ديار يا قوة ديار قوة وحان رأينا نكون الأول أبو مدحوينا حقوق هاي ما أنت محمد عبد الله فرماجو دور شلسي وانشو وانفردي صدح لنا صوماليا وقال الله يقام بالله تنتمي مدحويني مركز جو حقوق هاي حق الشيخ محمود برايم يستركي لبضا دور الرقاية عشوال عبد الرشيد هي الشيخ شريف مدحوينا ومدى الصوماليا وحي أهيليا محمد عبد الله فرماجو لعل لوغو مهيلي قبيل لوغو مهيلي والله صودا في واحد وحال لوغو هيلي هل واحد أو نقفلني إنو يهي وطني الصوماليا وطنيات دي سيما أنت وحي تاقنتهي إني إثيوبيان كلوبيان شقالو كينان تلدي الصومالي وقادم واي ولي عذر دار قبلي جارس بوحيس وحانو ربنا إنو شاكنو إنو السوعليو هل يجي قلق الصومالي الطاقالمي إن قلب الدقع عبد الكريم الشيخ موسى إلا سعودي محمد عبد الله فرماج مدحوينه يقطع الله لقمت له منكر ومدكوا مد الله وحان لقوا ولا الصوماليين صوماليا ويحروبي دونتا بإذن الله الكريم وحان ربنا إن نسكت أرسلنا إن نكسب ابن قبيل والصوماليا ما أنت وقاليه نتقالبين هي NFD حرنتي مدحتويدا الله هايستا إثيوبيا هايستا شاي وحيو همبليين وقورن وسارة أريمها الدبلة إثيوبيا وحيو همبليين واسكولين وسيلة البانك توصارين والحقين نقوار إثيوبيا قف صومالي تشبه يعني إثيوبيا صومالي وهمبلييسا وحان كقبحيا كل يران ماي هالكا وحين يسوون نمي هنا إنه فرين دولة دوتي فرين داتنا وحاوي إلا سوعلي عبد الكريم وطالبوا أدوم كوحا عيبها قف قطقا ولوده في سولية قاعدة هالغولية عبد الكريم هل يجي صوماليات إن عدوي ولدك على بي نفس صومالي الحني إن لوجي وحيلاقي صومالي قاركين إثيوبيا كيسمان هو قال لنا وحسنا صنو وإثيوبيا صوماليا كتشتا عيدا كادبا كتشوغا يرجري بي قبصدين ما تري بي قبصدين قبل حاجة بي قبصدين مركي دونان بي سود دينيا وجال دينيا وجدن وحوي عبد الكريم وحلاقة بقي وحوي إن أنقف صومالي وشرف للهلين وهاليين هرتين لو قردورو وعندهم يجينو قادر كرنا ولا الله يا رب وحاردي كعب سنية مالي وردو مدهات كمتشيني كرنو وإن عبابين دادك الصومالية على مدى إثيوبيا وتو دادك الصومالية الحشواني لحظ وياها نيتشوغان أرنتني قبيل ما وقرنم وصومالي وعنك قبحيا هذا كور باسيد كواتي الأرض على صومالي سبحان عبد الله ما في وجه لو قبل واحد هكذا ما سأل لو قبل ياقي سأل هو قبل كنت لنيك وضعها هاي هليك وحيد ضد قفة ميل بيوتشوكتا حتى هذا الضف كان نعبتها وشددنتين والله لا يوحي قبل كنت وحيد هدي أغل قدها يسوقو وحنا جيري ناس حسن هاي كنت هدي أغل قدها يسوقو داخل قاحي دارود كتبه وإساق دقيق وحيان الحقوق ياهي سومالي قويسكير اسكبديني محان كقدك داروح لديني سوما دبجو نيقا بانتا لعبد الكريم وحان لوردي بيوحوها القحيسو وحان لياب اللي دولة صوماليا وحانو شيغينا سيدي اي قعنتا قميسيغا ugu galisay naftuura عبد الكريم شيخ موسى وين يسو عليسو عبد الكريم شيخ موسى وحوها مواطن صوماليات بي قعنتا إثيوبيا galisay دولة صوماليات وحان شيغينا ugu baaqayna cod dheer ugu sheegayna عبد الكريم inay ku soo celiso dhulkiisii hooyo عبد الكريم dhammaanteen waxaynu nahay wada qalbi dhagax dhammaan waxaanu wada nahay qalbi dhagax dhammaan waxaanu nahay wada gobonimo doon fikirkii iyo wadadii iyo mabdii u taagnaa cabdikariin sheekh muuse ayaanu wada haysanaa
ama aan u sheego madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo weli madaxweynaha kulana waxaan rabaa inaan u sheego ra'iisul wasaare Khayre weli waxaan kulanahay ra'iisul wasaare waxaa dood dhex martay shacabkii Soomaaliyeed iyo shacabkii Itoobiya waxaa doodii ku guulaystay oo hadalkoodii dhageysatay shacabkii Itoobiya shacabkii Soomaaliyana hadalkoodii gadaal baa iska marisay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo ma ummadda Soomaaliyeed baa meesha ku keensatay mise shacabka Itoobiya meesha ku keensatay waxaan rabaa madaxweyne ummadda Soomaaliyeed baa madaxweyne u noqotay kuna dooratay waxaan rabaa madaxweyne annagoo weli madaxweyne kula cayna aan ku caayaynin aniga inaan dhahodaan doon ma qabo sababtoo ah Itoobiya waxay rabtay weeye inaynu kelmadaha isu adeegsanno inaan waaweynayno ma mudno waxa inaga dhaxdeenna maray laakiin maanta inaan waxaan aan kaa bannaan baxna madaxweyne adaa nagu kallifay waxaan u baahanahay madaxweyne waxa aad la aamusan tahay waan garanayaa inaad weli ceebta aad samaysay aad la aamusan tahay oo kuwa aan xishoonin aad ka soo hormarisay laakiin galeen baad ka taagan tahay waxaan leeyahay madaxweyne qaladkaad gashay diro qaladkaad gashay diro rag waxaa ugu geesi soo baalayidhi ninkii qaladka uu galay karta baa rag ugu geesi soo baalayidhi marka madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa qaladkaaga intaad filatid cabdigelin halyeeye hore oo la diiday baa ka sii horreeyey السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن مانتا فرصة يعني إن الله هذا الجامعة حسن علي أو الصوماليات لماذا كنت بيسي جامعة وكمدها محالة لها صوماليات وعائلات الصومال لماذا dadka gutum kulayna markay imaato difaaca Soomaalinimada jaamac maanta waxaan weydiinaynaa fursadan qaaliga ah maanta isku yimid muxuu ahaa muxuu soo kooban yahay maxaas ku darsan maxayna tahay aragtidaada ku aadan muwaadin Cabdikariin Sheekh Muuse intaankii loo gacan geliyay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه بعض ما سمعتين أرنتني وأرنتي ديراله هذه حن أنا أقل من قصة Soomaaliya إن لورنا بس لورنا عنك رجع Soomaaliya هذيك هالجامعة لو عن جلي ودك كلها تقلمي Soomaaliya وكلها تسوى من بدل بعض حوي وكيف يسند حل المنطقة مدل Soomaaliya ويعيش waxay sheegeen waxay qabaan bay sheegeen dalkii dibadda inay ka xun yihiin arrinta waxay kaloo Soomaaliya shacabka Soomaaliya codsadeen oo dawladda ka codsadeen in laga jawaabo iyadoo jawaabta la sugayay dawladdu waxay kaga jawaabtay in la yaab leh oo tii kala ka oo ah in golaha wasiirada Faransa yiraahdaa OLF waa argixisada caalamka ma aha hal wadan bay ka yihiin argixiso waa Itoobiya inaguna Itoobiya ka mid manni OLF waxay ka mid tahay qayb ka mid ah Soomaaliya weeye shacab Soomaaliyeed weeye oo dulman weeye marka arrinta tan maanta waa arrin ummadda Soomaalida ku xun laakiin waxaan aad iyo aad Ilaahay uga mahadnaqaynaa waxa weeye shacabkii Soomaaliya way isfahmeen wadaniyadii waa soo laabatay qaarad kasta oo adduunka ka mid shacabkii Soomaalida uu ka hadlaya baarlamaankii baa shaqaynaya odayaashii hore Soomaaliya shaqaynaya dumarkii baa macnaha dadka shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogeen waxay muujiyeen Soomaalinimadu inay tahay waxa ugu dambeeya ee shacabka Soomaaliyeed inay ilaashada ay ku xisbiyeen anoo ka faa'iideysanaya xilliga iyo waqtiga waqtiga maanta banaanka inta shacabka Soomaaliyeed inuu galno wanaagooda inaynu la wadaagno grievanceska iyo dhibaatooyinka haysta Cabdikariim oo walaalkeena qoyskiisa iyo carruurtiisa oo maalin walba TV ka weysa nin Soomaaliyeed oo qaranka u dagaalamay oo u dhaawacmay oo waladii loo laayay in la dhiibo waxaanu markan rabnaa oo ka codsanayna dowladda Soomaaliya waxa anigu xogaan waxaan u ahay si loo doortay Farmaajo waan joogay waxaan xogaan u ahay Khayre markii la magacaabay waxaan filaynay inay yihiin dhalinyaro isku kalsoon oo madax bannaan maanta madax bannaanadooda ma muuqato qaranka Soomaaliya way dhiibeen laakiin waxaan qabaa inay jaas leeyihiin madaxweynaha waxaa laga rabaa inuu tallaabo qaado cid alla ciddii ka dambaysay dhiibitaanka ninka Soomaaliyeed iyo cid alla ciddii Soomaaliya Itoobiya waxa halaysay waa la yaqaanaa inay ku dhaxdhuuman golaha shacabka ku dhaw golaha wasiirada ku dhaxdhuuman inay shaqada maxkamadda keeno haddii madaxweynaha iyo dowladda Soomaaliya ay go'aan ka qaadan kari waayaan waxay noqonayaan wadooyinka hore marayaan ku hormareen
wagaag ma isleedahay maadaama aad ka dhawaajisay in madaxweynaha wax ka qabto ma isleedahay ra-iisul wasaare xasan khayre wasiiradiisa qaraar ay gaareen uu iclaamiyey wasiirka warfaafinta ma isleedahay arrinkaas inay tahay madaxweynaha federaalka soomaaliya uusan waxba ka ogeyn maadaama aad ka dhawaajisay inuu wax ka qabto maadaama uu khayre wax ku yidhaahday wasiiradiina go'aan ay gaareen inay only terrorist list gasho sidii loo sugayay sidaa ka dhawaajisay inay wax kale la yimaadaan farmaajo ra-iisul wasaaraha uu u iclaamiyey wasiiradiisa maxaase u mooday u malaynaysaa inay farmaajo ka qarsoon tahay u malayn maayo inay ka qarsoon tahay waxaan qabaa go'aanka golaha wasiirada soo baxay madaxweynuhu xoogaan waa ogyahay haddii laga awoodo oo lagu qadamay oo laga adkaado waa shacabka Soomaaliya isagay sugayaan hadlo isagay sugayaan tallaabo qaado arrinta golaha shaq wasiiradu ay sheegeen waa xaraan waxaan jirno Soomaaliya soo marin inkastoo ay jiri jirtay oo madaxweynaha Soomaaliya kulliga sharaatiga shacab Soomaaliya boqolku gaaro xidhan oo la leeyahay tagayidii wadanaga maqan سيبك كل يوم كلها وسيرة مركا مدحوين محمد عبد الله فرمات الدار مال أنا ما من سنة سنوين هدول حتى كرتونية هاي وحالا قربا إنه بريرو ومد سؤال هذا هدول له الرواية وكفى إذا سوى وطلب قادوا محمد وناقي لقوا دورتي لقوا تومي وكسر العين سنتاي داوديال وحن opportunity أما aan ku yeelanay nasiib mudane jaamac oo ahaa xubin ka mid ah xubnaha Soomaaliyeed aad iyo aad ugu dagaalama Soomaalinimada ahaana madax sare Minneapolis community iyo dhulkiiba aad iyo aad ay u mahadsantihiin Sahan TV iyo wargeys